وحنا وبحيي الصواعق السلفية على مجازفات حسن حسين التكفيرية ردقا وحكو أركرا قفكا قارقا أما دقيستها وحكو أركرا شدو إيادضي ما كاقريني قفكو إنو runta laazimo waa wax loo baahan yahay ma ka qarinayo shidda عليه على حسان iyo atbaacdiisa iyo takfiirka dhan sababtu maxay tahay laba arrimood baan ugu waaweyn asbaabta shiddada keentay waa marka koobaad lidaacatu lisan almardud alayhi mid kan la radinaya aad u carab xun qof af xun marka yaani u jawaabaysid oo arabtid ina edbisid هذا waxa weeye waxay ahaanaysaa ala qadri haajati bukuleelku ahaanay shidadu marka waa ku banaanta meeshaas oo kale alla wuxuu leeyahay wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaa'ika ma alayhim min sabil alla wuxuu leeyahay la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulim wa banaantahay shidda lagu sameeyo inka soo xasaan afhumo iyo liidnaan dhinacaas cid ku gaari karaysa aanay jirin sayyi waxa weeye faahishul qawl بديء اللسان وأفديروبي وذا أفديروي وكتجي آدابتي شرع جاهد يكون علم جاهد بكبحيوي شيء الله بعض واحد ويدك غاركي أتباع تابعي متبوع بقى لا يسجره ولا يردعه إلا العقوبة عقوبة ضم بعلسه رفقة يلين حماقة يتمادى بيسكر للناس ضغني بيسكر للناس حلي وبعض الناس شرير ولكن إذا عرف العقوبة قل شره dadka qaar ku waa shar badani laakiin sharkiisu goormuu yaraada markuu la ciqaab cuqubada markuu arko xasan marka khusumtis salafiyiin wa khalafiyiin takfiriyiin wa غيرهم khusumtis nin waxa kan la yiraahdo waxa u hambeeya ma waa mudaya marka galaasku ku dhaaminayo keelka ku beegaya loogu beegaya wadaanta u daraya la daraya markaaga markiina u adkayst muddo hadaad waxa rabti soo sheegaysay maanta xasaaniyiinta waa yoomkoodii way la tasma'una illa ma yusii'ukum insha Allah ta'ala qofkii xaq doonayaan xaq ka helaya qofkii aan waxa kan la yiraahdo wala yaziidu adh-dhaalimiina إلا خسارة ظالم كان خسارة كسي قاضي سأوي قفك حق دونه يو أن كان كوكت سومينه س علم يهود جيست وكيل يا والله وحن بلن قاضية وشدة وهذا كان يا لكن شدة على الحق مرنا إن أنا كبحين أدب كعلمي يا مراعاة كسينا إلاليو تسوى ويبوكت ردي جيسوا وحن كده جاي أرقى يبض بنغندنا إن شاء الله تعالى qaybta ugu horeysa waa qaybtan aanu hadda ku jirno qaybta takfiirka ku saabsan oo la yiraahdo as-sawaa'iq as-salafiyya waxaan kale ku radin doonaa al-hukm bi ghayri ma anzal Allah waxaan ku radin doonaa al-khuruj ala al-hukam waxaan ku radin doonaa xoolaha gaalada in la xado oo wax la yaab leh oo kala yimid meeshada ku arki doontaan waxaan ku radin doonaa khusumtiisa laynta khusumtiis in la laayo culimada iyo shacabka iyo غيرkoodba waxaan ku radin doonaa mawaalaadka waxaan u garnaqi doonaa asaga iyo khusumtiis ama salafiyiin ha noqdaan ama i'tisaam ha noqdaan ama tabliiq ha noqdaan ama takfiiriyiin ha noqdaan